هاي ليجن وانيغو علي كامل markale waxaan idin wadaagi doonaa film cusub oo kamid ah taxanaha 2022 oo ciwaankiisu yahay naagta marfishka lagu hayay daawasho wacan biri hore gabar yar oo qurux badan oo hooyadeed u saxiixi lahayd tartanka quruxda magaalada hooyadeed had iyo jeer waxay oran jirtay haddii aan ku kala doori lahaa inaad aqli badan tahay iyo inaad qurux badan tahay waxaan ku doori lahaa inaad qurux badan tahay mar walba waxay ku oran jirtay erayadani oo waxay ku dhigan qalbiga inanta yar gabadha yar waxay ku kortay inay noqoto Amelia ta ugu quruxda badan oo ah gabar supermodel oo lagu soo hirto isla markaana leh mustaqbal ifaya inta lagu gudo jira mid kamid ah moodooyinka badan ee muujinaya in Amelia ay la kulantay Harry oo ah milyaneer qurux badan labadoodu waxay bilaabeen xiriir xamaasad leh isla markiiba Amelia waxay u guuraysaa guriga weyn ee Harry waxay u maleynaysaa in nolosheeda ay ku dhowdahay ajiib subax kamid ah subaxyada Amelia waxa hurdada ka toosisa qaylo yaab leh oo ka imaanaysa xafiiska Harry oo ay aad si ay u hubiso waxa socda iyadoo oo heshay saaxiibkeed oo ku dhijinaya marfish weyn gidaarka tani waa naadir Harry sababtoo ah waxa uu badiyaa door bidaa inuu shaqaaleysiyo xirfad leh marfishku maahan buugaagtiisa ama koobabkiisa mid uu saarayo waa hadiyadda Amelia oo waqtiga xaadirka u aragta mid aad u macaan laakiin aan u maleynin in dhammaan kabaheedii ay ku habboonaan lahaayeen taasi waa marka Harry uu cadeeyo marfishku in macna ahaan loogu talagalay Amelia lafteeda wuxuu u maleynayaa inay taasi ka dhigayso mid aan laga adkaan oo uu furi doono 100 ganacsi sababtoo ah markuu eego iyada wuxuu had iyo jeer xasuusan karaa wuxuu leeyahay oo weligiis ma lumin waxa ku saabsan iyada Amelia aad uma jecla fikradan waxayna xasuusinaysaa Harry inay tahay inay shaqayso laakiin waxa uu ugu jawaabo waa inay joojisaa maadaama ay nacdo shaqadeeda si kastaba Harry wuxuu maleynayaa inay aad uga baxsan tahay inuu ku noolyahay nolol caadi ah Harry wuxuu ka caawinayaa inay korto jaranjarada si ay ugu fadhiisato marfishka kadibna barkinsi si ay ugu raaxaysto ka hor intaanu qaadin jaranjarada wuxuu yiri tani waa muuqaal qurux badan oo nolol qurux badan leh dabadeed Harry wuxuu aadayaa si ay u quraacdaan labadooda oo hadda iyada oo kaligeed qolka ku jirto muddo kadib Harry iyo Amelia way isguursadeen laakiin xitaa inta xafladda lagu jiro waxay waqtigeeda ku qaataa fadhiisiga marfishka iyadoo xiran labiska arooska oo ay daawato qof kasta oo ku dhaxmilmaya oo sheekaysanaya markuu Harry khudbad yar soo bandhigo waxa uu weydiistaa rooti oo waxay isku aragtaa inay ku faraxsan tahay inay indhahaas oo dhan ku hayso iyada kadib markii habeenkii la gaaro qof kasta aaday guriga Harry wuxuu soo celiyay talaankii oo wuxuu habeenkii arooska marfishka kula hoyday xaaskiisii cusub maalmuhu markay dhaafeen Amelia waxay isku daydaa inay kala duwan nafteeda ugu mashquusho sida akhrinta majalladaha samaynta cidiyaha iyo xitaa jimicsiga dhawqa neefsashada adag ay samayso marka ay shaqaynayso waxay ka jeedisaa wicitaankiisa taleefanka ganacsiga laakiin dib kuma qabo inay tahay ganacsigiisa kan isaga ka jeedinaya iyada Harry sidoo kale wuxuu u keenay hadiyado qaali ah maalin kasta sida ubaxyo qurxoon dahab dhalaaraya iyo shukulaato macaan iyadoo doonaysa inay u dabaaldegto xitaa ciidaha janib joogista marfishka dushiisa waa caajis oo xataa gabdho la sheekaysan mayso Amelia si ka baxsan su'aalaha asaasiga noloshana waxay ka qaadaysaa madax banaanideeda iyo ikhtiyaarkii xorta ah Harry wuxuu bilaabay yar u fiirsado iyada kaliya wuxuu istaagaa si uu u dhunkado ka hor inta aanu bixin oo aanu u keenin hadiyado xitaa ma dareemo dharka quruxda badan ee Amelia uu xiro isaga oo kaliya waxa kale oo uu ku cadhoodaa kasta oo ay sameyn karto inta uu shaqaynayo sida awgeed wuu iska indhatiraa isku dayga ay ku doonayso inay wada hadal ku bilowdo galab galbaha kamid ah Amelia waxay soo bandhigtay labiska ugu quruxda badnaa iyadoo rajeynaysa inuu Harry ugu yaraan soo eego iyada taa beddelkeeda Harry wuxuu ogaaday in iftiinka dabiiciga ah aanu gaarin miskiisa sidaa darteed wuxuu shaqaalihiisa ka codsanayaa inay ka caawiyaan sidii u sii jeesan lahaa hadda Amelia waxay ku haysataa taawashada dhabarka qoorta ninkeeda mana joojin karto inay ilmadu sii daadiso 3 sano kadib Amelia weli waxay ku fadhidaa marfishkii waxay maqashay Harry oo shaqada ka soo laabtay laakiin uma imaan inuu arko uu ka fogaaday oo uu ka caajisay iyada Amelia waxay wacdaa magaciisa oo xitaa bilowday inay qayliso laakiin tani weli kama aysan helin dareenka ninkeeda kani waa cabashadii ugu dambeysay ay jibiyay Amelia niyadeeda taasoo ka dhigaysa inay go'aansatay inay tahay waqtigii ugu dambeysay ay ka bixi lahayd marfishkan tani way ka adag tahay sida ay u muuqato masaafada u jirta sagxadda ma ahan mid aad u sareysa si kastaba ha aatee waxay go'aansatay inay ka baxdo sidaas darteed waxay ku tababarataa kabaha labaad oo ay aqbasho waa inay ku boodaa dhulka Amelia si tartiib ah ayay bilowday inay hoos u dhigto ilaa ay kari weyday inay sii xajisto marfishka oo ay ku soo dhacdo sagxadda marka loo eego Amelia waa dhicis dheer oo cabsi leh laakiin dhamaantii waxay dhulka u soo gaadhay si degdeg ah oo aan waxyeelo lahayn marka laga reebo xoogaa xanuun ah way adag tahay in la socdo sanado badan oo aan sidaa la yeelin iyadoo lugaha ay noqdeen kuwo aan waxba tarin dareemada neecawda wejigeeda mar kale ayaa ka farxisa Amelia isla markii waxay bilowday inuu saamiso sidii ilmo yar oo markii ugu horeysay arkay
dunida iyadoo farxad ku dhex wareegayso. Amaleya waxay taabatay biyaha barkadda, waxa ay tuurtaa kubado badan oo tennis ah oo ay ku qoob ciyaartaa dariiqyada guriga ka hor inta aanay xidhan kabaheeda si ay u aado magaalada oo ay u fuusho gudaha gaariga boostada kaas oo kaxaynaysa iyada. Markay magaalada gaadho dhaqankeeda xaragada leh ayaa sii socda marka ay kalsooni ka hesho socodkeeda si ay dhaqso ugu dhaqaaqdo. Ugu dambeyntii waxay u dhaqantaa sidii inay mar kale qayb ka tahay bulshada. Amaleya waxay la ku duubatay baabuurka, waxa ay salaantay ninkii shisheeyaha ah, waxa ay ku qoob ciyaaraysaa miiska dushiisa oo xataa waxa ay nin weydiisanaysaa inay fuusho mootadiisa. safarku waa madadaalo badan. Marba markay gaaraan aagga xeebta, Amaleya ayaa ka soo baxday si ay u sii wado sahminta. Mar labaad waxay la qoob ka ciyaaraysaa qof aanay garanayn, waxay ka jexjeexday ganaaxa nin baarkinkiisa, waxay ku biirtay koox yooga ah, waxayba ordaysaa oo aakhirkii waxay u sii socotaa xeebta halkaas oo dad booliis ah ay ku biireen qoobka ciyaarka. Dabadeed waxay u carartay badda oo ay ku dhufanayso hirar qabow oo waxay u baahan tahay in dib loogu soo celiyo xaqiiqda. Wayna diidayaan inay tuweel siiyaan marka ay weydiisato iyadoo ay dareemayso qabow iyo cidla. Amaleya waxay go'aansatay inay mar kale ku wareegto magaalada ay soo baxdo dukaan la isku qodo iyadoo dareentay in haweenka qaarkood ay isku xidhaan xaaladda wejigeeda oo ka muuqda muraayadda daaqadda. iyadoo doonaysa inay mar kale dareento qurux, Amaleya waxay soo gashay dukaanka oo adeegsatay muunada bilaashka ah si ay u nadiifiso wejigeeda. isla markaa waxay dareemaysaa fiicnaansho marka ayaan u muuqan mid wareersan. Jordan ayaa aad ula dhacday xirfadda isqurxinta ee Amaleya sababtoo ah halkan ayay ka shaqaysaa, laakiin waxay ku qaadatay waqti inay si fiican u hesho. Jordan waxay la yaabantahay in Amaleya ay tahay farsamayaqaan isqurxinta ku fiican. marka Amaleya si dhaqso ah ayay u saxaysaa oo waxay u shaqadeeda inay tahay inay u fadhiisato sidii koob loogu talagalay milyan. Amaleya waxay ku jawaabtay iyadoo la wadaagayso falsafada quruxda maskaxda hooyadeeda. Jordan waxay u sheegtay in aanay qasab ku ahayn inay doorato, ay labadaba yeelan karto. tani waxay macno badan u leedahay Amaleya inay maqasho sababtoo weligeed waxaysan fakirin sidaas. ka hor intaanay Amaleya tegin, Jordan waxay isku dayaysaa inay ka iibiso shay sababtoo waxay ku shaqaysaa commission. waxay qabsatay usha dabdamiska oo waxay bilowday inay ku garaacdo marfishka si ay u burburiso dhammaan. burburinta waxyaalahan oo kale had iyo jeer waa cabsi, laakiin sida ugu dhaqsaha badan waxay bilowday dareen aad u qaracsan. sidaa darteed Amaleya waxay bilowday inay si dhaqso ah u jijibiso. hal sano kadib, Amaleya waxay furatay saaloon u gaar ah oo ay magaceedu yahay Astaanta. waa guul weyn. mar walbana waxaa jira safaf dheer oo dibadda ah oo sugaya markooda, laakiin xitaa dukaanka Amaleya waxay ku celcelisaa qaababkii hore. waxay ku fadhiisataa marfish calaamad halkudhig la yaab leh oo ku qoran oo ah qof walba ha eego, iyadoo rabta inay tusaale u noqoto siday u qurux badan tahay uguna aqli badan tahay inay wax ka qabato iyada ganacsiga u gaarka ah. si kastaba ha ahaatee, markay macaamiishu yimaadaan isla markaana ku dhahaan aad baad u qurux badan tahay, ma jecla inay maqasho ereyada noocaas ah. Amaleya waxaa markasta dhigaheeda ku soo dhaca in quruxda dumarka la dhayarsado isla markaana aan ahayn koob loogu talagalay milyaneerada. si aad u hesho aflaam cusub, fadlan share iyo subscribe-ka noo saar High Legend. maalintu ha idiin wacnaato.